السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mid kale oo kamida qisooyinka cajiibka ah ayaan idinkaga soo gudbinayno channelkeena qisooyinka Nadaara 2 haddaba toddobaadkan waxaan idin hayaa qiso kale oo cusub oo kamida qisooyinkan isleenahay dadku wax badan ayay ka faa'iidi karaan qisadan haddaba waxa ay ka dhacday dalka la yiraahdo Morocco waa qiso runtii cajiib ah dhanka koonfurta Morocco deegaano ku yaala ayaa laga soo warinayaa qisadan haddaba meesha waxa ku noolaa nin la yiraahdo Alxaaj Marwan waxa uu ifka ka dhalay wiil iyo gabadha ayaa weyn gabadha waxa la yiraahdaa Khadija gabadha iyo wiilka uu dhalay iyo hooyadood ayay meel ku wada noolaayeen Marwan wuxuu ahaa macallin dadka tababara karateyga ama culumta dagaalka sida la isu difaaco sida maaragtay karateyga la yiraahdaa maaragtay qofku markii la soo hujuumo suu isaga difaaci karo waxyaabahaas macallin dadka baru ahaa wiilkiisa oo Khadiijada ka yar dadka isdhiba maaha karateeguna sidiisa iyo barashada culumta dagaalka waxay u baahan tahay tababar culus u baahan tahay inaad gacmaha adkayso inaad jirkaaga adkayso inaad firfircooni muujisid wiilka marka wuxuu yiri anigu ma baranaayo odaga marka xaafada marka waxa uga furnaa meel uu dadka training-ka ku siiyo gabadhiisa Khadija aaday u jeclay aabaheed inay mustaqbalka ka badasho culumtan gabadhii tababar ay qaadanaysay odagii wax badan ay ka baratay sida la isu difaaco sida hawlahaas loo qabto ilaa xad inay istifaaci karto odaga marka wuxuu kula dardaarmi jiray wuxuu dhihi jiray ha u isticmaalin dumarka aan tababarka haysan inaad ku dhibaatayso tababarkan macnaha shuruucda dadka iyagu hawlaha ku takhasusay haday tahay feer qofka haduu feeryahan yahay uu dagaalada feerarka iyo ciyaaraha feerkii ka qayb galo qofka haduu yahay legdinyahan oo ciyaaraha legdinta waxaan ka qayb galo qofku haduu yahay karate din macallin ku ahoo aad maartay ciyaarta karateega u yaqaana waxa la siiyaa wadamada qaar qofku testaro oo arinta ku cadeynaysa qofka magaalada ku jira dadkii magaalada waay marka nin boxing oo feeriyahana magaalada socda hadaa qof caadi inta u maleysay la dirirtid ilkuhu kugu dhufana markii uu afka dhor kugu daadanayo waa nin tababaran marka dadkaas oo kale waxa la siiyaa kaar yar qofku markuu meel soo galo ama buuq dhaco ama dagaal galo kaarkaas uu kula soo baxaa wuxuu kuleeyahay ha ila dagaalin waxaan ahay qof noocaasa haddii aad tahay qof isaguna noocaasa waa dagaalami karnaa hadduusan ku dhihin laakiin sideedaba uu dagaal kugu bilaabo shuruucda dalalka qaar ninkaa waa la xiraya qalad weynuuna galay wuxuu u isticmaalay qof markaa aan tababarnayn ayuu tababarkiisii ku dhibaateeyey sida adduunka laysu ilaalinaa fiir annaguna jugta iska gelinayna nin qori wata nin kale u dilaya ninka waxa la rabaa sameeyna laakiin adduunyada qaar shuruucda waxa laga dhigayba ninka hawlaha ku takhasusay dadka caadiga lama dagaalami karo waa mamnuuc hadduu u gacan qaado waa xabsi la gelinay ninka marka gabadhiisu kula dardaarmay wuxuu ku yiri hablaha inta badan ma bartaan cilmigan funuunta la yiraahdo dagaalka la yiraahdo karateyga iyo legdinta iyo gabdhaha aad uga bartaan waliba gabdhaha carabta iyo kuwa islaamka iyo hawlaha aad uga fiicna marka dagaal hadaa gasho ha u isticmaalin testara soo qaado gabadha u sheeg hadii qofku marka la celin waayo sidaadan kugu galaya ku yiraahdo markaas taas ka dhicinaysa difaacu nafsi leedahay waayahay tiraabo muddo markay hawsha ku jirto macallimada noqotay oo qatar noqotay kadib aabaheeda xanuunsaday wadna xanuun degdeg ah ku soo booday odagii waa dhintay Xaaji Marwan khalaas Allah yarxam waa dhintay gabadhiisa Khadija soo hartay
maamadii oo iyaduna xanuunsan oo hooyadeeda ayay marka go'aan ku gaartay inay ilaaliso wiilkii yaraa wuxuu yiri anigu waa guursanayaa iska guursatay wuu guursaday magaalo kale u degay ayadii iyo hooyadeed ayaa isla nool wiilkii marka walaalkeed ahaa oo guursaday oo meel xoogaa ka fog degan ayaa islaantiisii cunug u dhashay wiilkii cunugaa loo dhalay marka cunugii hadiyaday u qaaday hadiyad ayay cunugii u qaaday hooyadeedee la ballantay waxay jira hooyo laba maalmoodaan walaalkii kusoo maqnaana gabar dariskay usoo yeertay hooyaday ka warhaaya tiri labadaas maalmood wiilkaan soo eegayaa cunugii loo dhalay ayaan soo ogaanayaa hadiyadaasaa u geenaya waa soo laabanaya okay waa soo baxday gabadh boorsay soo qaadatay dharkeedii xoogaa ku soo qaadatay boorsa yaray soo qaadatay cabaayadeedii soo qaadatay surwaal jiinisa hoos ka wadataa carabtan madaxu waa iska furan yahay marmar surwaal isaga socdaan marka masaajidka la galo ama salaada la dukanayo keliya la isdaboolaa markaas waxaa moodaa bararka qaar diinta islaamka iyo xijaabka iyo isdaboolidda iyaba inay wax uun qalad ka fahamsan yihiin wadamada qaar dadka ku nool gabdhaha ku nool macnaha madaxooda iska furan 24 saac markay salaada u istaagayso ama qaarkood masaajida markay soo galaan waxay masaajidka waxaaba yaala meelo baal qamaar camal oo loogu talagalay marka meesha soo galay waa weysaysan qamaarkeeda dhab isku siinaysa way tukanay qamaarka bixin meeshiisa ku celis masaajidka ka u yaalaaba baa loogu talagalay marka ayadoo sidaas isaga libisan oo boorsadeeda wadata ayay waxay soo aaday meeshii walaalkeed u socday marka waa inaan soo baxdaa oo timaadaa meesha basaska laga raaco basaskuna saacaday ku baxaan meesha waa iska gobol magaalo weyn ma aha gobol kale markaa aadayso waa inaad dhowr saacadood baska hadduu kaa tago dee waa inaad baska la sugtid waqtiga qaadanaysa dad yaraa meesha degan ilaahay amarkiis marka meesha u soo dhaweyd ayaa baskii horteed dhaqaaqay okay baski markii horteed uu dhaqaaqay gabadhii marka meesha istaagtay xoogaa way murugootay oo waxay istir baska kale intaa sugayso waqti badan uu qaadanaa waa jactadaysa ayadoo fakarayso meeshii taagan ayaa waxaa yimid halkaas gaari qurux badan gaari qatara oo marsheedisa oo qurux badan oo madow ah meesha soo istaagay dhag way yaabtay gaariga nin baa saaran markaasuu wuxuu ku yidhi marka taarikada gaariga uu wato taarika marooka xataa maaha waa taarika dal ajnabiya nambarka gaariga uu leeyahay waa nambar wadan ajnabiya wadankii taarikadiisi maaha inta badan dalxiisa loo tagaa Morocco dad badan oo gawaaridooda qaata maraakiib ku qaato ka daga oo meesha iska soo enjoy gareeya soo laabta baabuurkooda soo qaata carabahan meelahan ka tagaa u badan marka gaariga marka taarika ajnabina uu leeyahay waa gaari qurux badan oo madow oo marsheedisa oo kala jiidan agteeda soo istaajiyay muraayada la dejiyay waxaa la baski wuu ka tagay ma ku qaadi karaa markaas waxay tiri waa maadsatay baskayga iska suganaya marka wuxuu yiri hamoodin inaan lifti kugu qaadayo ee waxaa jiruu yiri basaska mararka qaar ma soo laabtaan marka anigu taxi oo kale aan u shaqeeyaa uu yiri inkastoo qolooyinkan dawladda iyo aan ka dhunto sharciyad aan u haysan taxi ahaan ku qaadi karaa meesha rabti gabadhii marka way degdegsatahay waqtigu waa xilli galaba habeen haday ku noqoto culayska ku badanaya meeshina meel 40 kilomitir meeshii u jirto waaye meeqa ugu qaadaysaa bas lacagtii ku isoo soo raacday ninka markuu cabaar gabadhi soo waday sheeko wada marka meelo marka magaalada marka ka baxdo magaalada kala aadaysin waxa la sii marayaa meel xoogaa kayn ah oo dhir iyo beero iyo waxa la sii maran markii meesha la marayay ayuu gaariga meel geesan ku xijay wuxuu yiri waxaan ka shakiyay lugta dhinaca inay xoogaa si tahay marka waa eegaya waxa riisu okay tiri ninka marka uu soo degay lugtii uu fiiriyay marka gadaal uu aaday
baalkii lugta lagu hagaajinayay iyo lug iyo waxbuu la soo baxay wuxuu yiri wax yar soo degiya caawi baalkan ii qabo lugtaana bedelaya gabadhii markii way iska soo degtay boorsadeedii markii gadaal ay ugu jirtaa waxay markay soo degaysay ninkan baal yaroo faashada oo wax lagu buufiyo baal sprayda waxa jirta qofka inta lagu buufiyo sanka looga qabtaa sanka marka uu qabatay qofka uu miir doorsoomaya markaas qofka ugu dambaysa wax lagu sameeyay xataa warka maayo gabadhan marka sideedaba way taxadarsan tahay isagu wuxuu moodaa gabdhaha caadiga waxba ka raaci doona ninkan baashu la soo booda sanka ku qabo markuu maagay dhag inta siisay ee asagii oo xagga ku dhacay baashin xagga ku dhacan wuu isa soo waalay wuu soo orday nig bandhaakaas ku dhigtay way soo baxday boorsadeedii la degtay mar kale soo hujuumay way iska dhicisay mar saddexaad mar afraadkii wuxuu la soo baxay midi halkaas leeg markaas waxay tiri maxaa rabtaa markaas wuxuu yiri laba arin buu rabaa haye wax allaali wixii hanti aawadato faraatiga gacantaada ku jira dhagaha kugu jira katiinada dahabka kugu jirta boorsada aawadato mobilkaaga waxa oo dhan waa qaadanaya iyadoo xaggaas taagtay midda labaad wuxuu yiri aniga waxaan doonayaa inaan adigana maartay ku biyeysto waxay tiri horta mid xisaabta ku daraytay waxaan waa ku siinaa inta dhibaatayn lahayd ama aniga aan ku dhibaatayn lahaa waa u jeedaa inaad tuug soo jeestay tahay waxaan qaado laakiin inaad igu xadgudubto oo cirdigayga iyo sharafkayga meel uga dhacdo inaan maartay dhintaanka xiga ninkan marka tijaabana uu haystaa moogtay gabadha inaysan igu soo bood ahayn wuu arkay laba maro inta hujuumaya dhagaha laga garaaco midi la soo baxay wuxuu isiri naagtan inta ay ku ogoshahay ka qaado ha ku xadgudbin hadaa xadgudub u tagto midida ka qaadato ay gudisho naagtu waa balaayo hadayba inta ku ogoshahay ka qaado soo furo dhahay marka wixii ka teenadii u furtay baalkii siisay wixii ordaan siisay boorsadeedii dharkeedii wixii roon qaatay gaarigu saartay wuu la tagay gabadhi marka meesha taagan tahay meeshu waa meel cidla wax yar kadib waxa soo maray makiinadahan cagafta oo beerta lagu falo ayaa soo martay oo gabgab oo gaari weyn oo qudaar wada nin iyo naagtiisa odaya saaran way joojis maxaa dhacay gabadheedii meeshaan maxaa ku joojiyay dhibkaas ay ugu dhacay tiri inaa intii soo qaaday meeshaan dhigay dhacay dhibaateeyay marka waxaan u baahnay tiri meel ugu dhow saldhig booliis inay geysaan saldhig booliis ma dheereedeen soo fuul ma baashiya soo korta gab makiinadii si loo soo meeshii saldhiga booliiska timid saldhiga booliiska markay timid meeshii saldhiga soo gashay waxay ku dhacay sheegtay ninkii marka saldhiga joogo wuxuu yiri gaariga noociis gaari Mercedes oo madow oo taariko maartay ka marka kiisaskii oo fiiriyo wuxuu dhacay dhageyso ninkan dhibaatada geysanaya waa raadinuna kaliya maaha gabadhii toddobaad oo uu dhibaato ku geystay adi hadda waxaaba noo sheegtay inuusan waxba kugu samayn laakiin uu hantidaadii dhacay kuwa kale hantidoodiina wuu dhacay waana biyeystay halkaasuna uga dhaqaaqay haye waxaa soo kale aan haynaa gaariga hadda aa sheegaysid madow oo taarikada leh maalin ka hor ayaa booliiska lagu soo wargeliyay in laga soo xaday magaalo la yiraahdo Casablanca oo maartay ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Morocco kamida waxa iska lahaa nin ajnabi ah gaarigaas maqan gaarigan markuu ninkan gawaari la soo dhaco ayuu falkan ku sameeyaa meeluna iska dhigaa kadibna uu ka tagaa ninka marka waa nin aan raadinayno waa hawshaas ku jira waxay tiri hal mid iyo ogolaada haye
ninka inaan aniga raadiyo wax ka soo qabto sheekada marka magaceedu waxa leedahay المحقق السرية لهذا باريتان gabadhii baaraha ahayd ee sirta ahayd ninkii markuu wuxuu yiraahday police miya tahay ma yiraahdo police miya laakiin waxa tiri sheekooyin qisooyin badan akhriyay waxyaabo badan arkay sida dambiilaha loo soo qabto marka hadaad fursad isiisar waa idin la shaqeynaa ninka hantideedu dhacay gabar dambe inuu soo ku xadgudbina waa raadinaynaa ninkii marka meesha oobiga wax qorqoray wuxuu yiri bal aan aragno ninkii taliyaha imaanay bal waxirsu taliyaha yimid okay u dhahay ninka waa raadinayna nala raadi okay dhaad hal mid iyo golaaday dhaad hay gabdhihii ugu dambeeyay uu tacadiga ku sameeyay magacyadoodaysii marka hore booliisku way diideen hadda se ku siinayna marka danaan way fakareen booliiskii way tashadeen ilaa 3 gabdhood magacyadooda siiyeen gabdhihii meelaha ay degay waxay gabadhii ugu horeysay u tageen way wareysatay waxay tiri ninkan magaciisa dhibaatada noo geystay waxaa lagu sheegay Cabdallah warkiisa waa haya ereyadan kama dheera meelahan tuulooyinku ka qaraabta booliiskana ninka way raadinayaan uu ka dhuntaa meel magaalada dhexdeeda oo markuu wax ku sameeyo tuulooyinku tagaa marka maalin maalmaha kamida aniga iyo 2 gabdhood oo aan dhalay oo u socona ninka marka waa fataad mudallaqay dheetan waa gabar la soo furay gabadha uu kufsanayo oo dambe annagoo dariiqa socono baawurka noo joojiyay baawurku nagu tuuray waxbuusanka noo saaray waxaan oo dhan u qaatay waxaan soo degnay isagoo aniga iga adeegtay gabdhuhu waaba yaryaraayeen wuxuu rabo iga samaystay mushkiladii ugu weyn oo haysato waxay tiri sanad iyo xoogaa ayaan mudallaqa ahaa gabar la furay uura igu soo baxay uurka waxaaba iga sii daran baaritaan guud markii lagu sameeyay waxa lagu dhahay HIV positive atay ninku marka waa nin xaraami ah dadka uu dhibaatada ku sameeyo dhan HIV gaas u qabadsiya ay diskaasu ku ridaa maaratay hantidoodu dhaca waxa uu gabdhuhu u kubsanayo waa hawshaas marka biliis ninkaas waa halis badan yahay annaga hadda khatar galnay adiga ha raadine way murugootay gabadhii Khadiijayd waxay tiri haddayba iiga darantay ninka inaan soo qabto ayaa jirta say u raadinaysay gabadhii kale gurigeeda tagtay tii kale gurigeeda tagtay tii kale midii kale oo ugu dambeysay oo nambarkeeda la siiyay ayaa markii u sheekeynaysa waxay tiri ninkan maalinkii uu kufsanayay maalinkaas ninaa la socday tiri أول مرة أي شيكتو مدة نن ولا سعودي كوي هردون وحوش يجاي كلجي سنو عسيد عيد كلجي دو صوري هاي نكاس ولا سعودي مالنا وحنكو أركي مقالة عندك جناي تولجيس كذا السوق الدكان كويستا marka ka baqay aniga dhibaatada saali geystay inay inta ka badan dhibaato kale ii geystaan marka ninkaas uga shakisanahay iska ilaali ninka ma taqaana ha intuu jooga meel meeshaas uu jooga laakiin ninka ma aha ninka waa maalintaas uu la socday ninkana waxa la Cabdallah wasoola ahlan wa sahlan baashi marka waxa heshay ilay wax ku raad ayadiya booliiski waxa maba u arkaan ba gabar la kufsaday oo la dhibaateeyay wax weyn maba u arkaan ba waxa kan waa wax imtixaan ah arabta qaar waaba yaabaysa waxay yihiin gabadhiya marka raadinayso hooyadeed iyo reerkii kale la hadasho waxa tiri aniga nin kaana soo qabanay tiri gabdhaha baabahda ka dhigay way soo baxday dukaankii loo tilmaamay tagtay ninkii meesha joogay oo tagtay waxbay ka iibsatay dukaanka eriyadiisa ku laabata waxay siraadeen ka amu yimaada gabar marka xaafadda degan oo dukaanka wax ka soo iibsatay oo soo noqotay waxay tiri waxaan ku weydiinaa ninkan dukaanka iskale nin Cabdallah leeraado ay saaxiibiin ma garanaysaa gabadhii waa naxday waxay tiri Cabdallah waa gangster waa
وانا قفكي ما او شيغا بوليسي waxaana raadinaya uu dilaya isku dhawaan gabar qurux badan oo dhalinyaro tahay xagu degan tire hatire marba midow daga guriyo tuulooyinkaas meelahaas guri noocaas isku babadala dukaankan habeenkii marmar yimaada ninkan saaxiibihiin wixii uu soo xado dhan kan uu keenaa wada kala la helay way soo baxday meeshii loo tuuladii loo tilmaamay maalintii dambe baabuur aad u qurux badan oo nooc kale oo cusub ah ay meeshii tuulada loo tilmaamay guriga Oryaal ninka maalin walba baabuur soo xadaa meeshu dhigaa gabdhii baabaha ka dhigay xaasidnimo wuxuu rabaa inuu cudurkaas dadka qabadsiyo rabaa ninka waxay sidoo kale ogaatay inuu yahay nin dibadda ka yimid wadamada Yurub iyo meelaha ka yimid oo khaa'ina gaangistara xaasidnimo cudurkaas gabdhaha raba inuu ku faafiyo silaaliye gabdhihiina wiilasha asiinaysaan xataa hal la baaro hal isbaaro dadku mar walba way sheegaan dhaqaatiirta laakiin dadka inta badan way iska yaraystaan dad waxa jira xaasidiina cudurka iyo dhibaatada ay qabaan raba qofka miskiinka inay qabadsiiyaan waxa ka faa'iidaan malwa xaasid isaga cudurka ku dhacay dadka uu rabo inuu qaybiyo marka waa qof Ilaahay ka baqay marka ninka marka xaasidnimada soo wada guriga soo ogaatay ninkii waxay aragtay albaabka ka soo baxay marka ninka way taqaanaa inay la dagaashay maalin dhan waayt inuu timo weyn yahay uu sharba waaweyn leeyahay koofiyad isku qariyo wallahi waxay tiri waa kan nig way baxday booliiskii wacday waxay tiri meeshaasaan joogaa iimaado way u imaadeen waxay tiri ninka gurigaanu degan gaari cadow meesha kala baxay uu soo noqonaya markuu soo noqdo guriga ana albaabka u garaacayo حبيبي ها الله مركو صبحو مركاس عليك قبلين اوكي رادي ما هراي سددو بوليسنا ما بوليسكي way qaba waayeen cilka ay u qabto ninka gabdhaha soo galay soo cudurka ugu faafinayo soo qabla Khadija caadi ma way soo baxday ninkii waa soo laabtay gurigii u galay boliiskii hareeraha guriga dhinaciisa ku gabadeen albaabkii u garaacday yaa waayeen Khadija yaa waayule gurigayga oo fiimaado malmijiniyad miya maxay tahay soo dhaay albaabku markuu furay oo arkay gabadhan ma xusuusta deemeeqo ka soo dhaxbay ninka waa halaag waxaan baba xusuusan karaba naagu hal maalin uu maaratay la diriray iyo waxaas iyo ma xusuusanay ninka meeqo maalinkii soo sameeyaa Khadija waxa tiri Abdullah aywa u dhahay maan kuleetiga qabad iska fujooga markaas loo tala dhacdo barku dhulkaaga isku dhacay uu isa soo waalay markaas dhagaha ka garaacay may taqaanaa tiroriya bastrio waa ku fahmooday gabadhii maalinkii garaacdeed waxaan ku weydiinay tir booliisku way maqlaan inay ku jiraan waxaan ku weydiinay tir way gabdhaha masaakiinta ee reer Morocco walaalaha ah aad inta kufsato cudur u qabad si saantidooda u dhacaysa xaasidnimada inta la eeg maxay ما والله هذا الشيء وحتى نفتح على عظامات من دنا مودة ترمات والله وحتى العيجيان كوكو دلامات هذا الشيء ورقبر امتحانه inuu iska waabiyo damcay soo istaaga haraatiin qoorta inta ugu dhufato halkaas ku dhacay uu su'aale gacanta bash waaba jibisay gacanta saasay u laalaadaa gacantiisa sheegay tiroriya markaas wuxuu yiri qolooyin Faransiisa oo loogu talagalay dadka muslimiinta ah iyo dadka maaratay عربتها وحقيقة إن فسق لغو فافيو عذر لغو فافيو أيان كونتراكت كسوقاتين هاي وحن أن دعاية وحن معنا ميسا بينا يعني مهمة وحي تاقي قبلها عن كفصرايو قبلها مركا واحد شوضانو يري قبلها مسلمين تايكو عربتها مد صوبح ذو البوليس كأوتكتو والله كفصديا نحي سوابا يرتويو kuwa hadda isoo dacweynaa waxa gabadano yiro kuwa badan oo wuxuu inta iska tirtirtay caleeyga tana iska baxay oo magaaladooda ku jira oo nima kala guursanaya markuu intaas marsiinay booliiska soo qaadeen nab
dhinacay ku dhigeen horta wuxuu yidhi waa lagu qabanaa waa islahaa maalin laakiin gabar sidaadoo kale taa ku qabanaysa isma lahayn marnaba kuma fakerin wada tirniki waa kanaa baastarka gabadhii iyo booliiska waa soo raaceen maxkamadii la geeyay gabadhii booliiska waxay ka codsadeen ilaa inay la shaqeeyayso oo waliba darajo sare uga bilaabaan waxay tiri maxay yiraahdeen anti muhaqqiqa sirriyeedeen waxaa tahay qof baaraa oo si khatara wax u sameynay gabadhii marka hawshii booliiska ilaa hadda la shaqeysaa la yiri warkii markii ugu dambeysay qisada sanadkii ay dhacday qisaduna waxay 2016 sida qoraaga qisada uu sheegay inta aan mar kale kulmayna iyo qisooyin kale asxaabay fakarkiina aragtidiina waa muhiim noo soo qora nabadgelyo